عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آدي هذا يعني السلام يا دماتين به عشر كنين سعودي أو عربية بين إن شاء الله تعالى نقارن ضمنا عربية هي قاعد سؤال بمهمة هاي وحين سوق هذا هرلعي وحين سوق هذا 10 كيكوباد وحين سوق هذا 10 كيلوباد وحين سوق هذا 10 كيسي صدحات 10 كصد أفرادي مانتا 10 كأفرادي وحن شعلائنا كرديغو صدح ذا 10 10 ككوباد 10 كلباد 10 كصدحات وليسو كيني هالميل ليسو كيني بلسه waxa jirta fikrad in hadii aad soo baratay oo saddexda 10 soo baratay oo midna a ba ta tha ja ha kalabaadna aad soo baratay i b t f g h ka saddexaadna aad soo baratay u bu tu ju xu khu ila qaabka inaad ka maarmi kartid markaa in aad haddana 10kii dib lagu soo celiyo haddaad garanaysid oo mid walba sidiisa aad u garanaysid xaraka iyo xuruuf baa la kala dhahaa xarakadu waa waxyaabaha kordhiga leh hadda ereyba halkan ku qoran haddaan kaa u yeelo waa xarako kan hoos dhiga waa xarako godniinka waa xarako xarafkuna waxa loo yaqaanaa kana loo yaqaanaa kan weyn halkan ku qoran kana loo yaqaanaa xaraf marka xarakadu waxa weeyaan qaabkii Soomaaliga la oran jiray tusaale ahaan a iyo e iyo i iyo o iyo kordhiga carabiga waa iyagu kuwaas kuwa hoos dhigaas ayaa loo yaqaanaa iyo kuwaas oo isku mid marka waxaad garan kartaa marka lagu leeyahay a oo kale oo uu sidan yahay waxay la mid tahay sidan marka lagu leeyahay sidan i markay tahay waxay la mid tahay sidan marka lagu leeyahay una waxay la mid tahay Soomaaliga qaabkii noocaas ahaa أنا سيدا وكلا فهمتها مركا قاب كسر الله استعمالية كائي وأساس ويان عربيو صوماليو حوليه شن إيري وشقل شقله يشبنا على كردها شبنا كهذا ما شبنا وحروف تلا يقنا لكن شقل هذا كهذا ليه صوماليو هو إيه iyo o iyo u waa 5 xabo laakiin carabigu ma laha tan carabigu sidoo kale ma laha taa marka carabigu wuxuu leeyahay a iyo i iyo u saddexdaas kaliya uu leeyahay iyadoo saddexdaa kaliya uu leeyahay carabiga ma waxa awoodi kari weyday inaad baratid waxaan filayaa saddexdii 10 soo qaaday ee ka horeysay waana ku soo baray aada 10kii labaadna wuxuu ahaa iida 10kii saddexaadna wuxuu ahaa uwada marka maanta waxaan qaadanaynaa 10 aan isleeyahay haddii aad fahantid waxa aad fahantay carabigii oo dhan 10ka aan macallimiinta inta badan aan aad u sharaxin wayna adag tahay inaad heshid 10kan oo kale waxaan rajeynayaa qof walba oo ay ku adag tahay ama macallin aan la fahmi karin qaabkiisa ama yacni meelo kale aad qaab kale u baratay inaad u keentid 10rada halkan ka baxa si uu qofkaasi u fahmo ereyadu carabiga ahi qaab waa la isku xidhaa oo erey walba ereyga kale ayaa lagu xidhaa ereyadu way isku xidhmaan waa la isku xidhi karaa midba midka kale ayaa la isku dhajiyaa tusaalahan haddii aad soo baratay ta'da qaabkaas oo soo baratay ta'da qaabkaas oo soo baratay jiimka waxa soo baratay qaabka
carabiga marka la qorayo qaabka looma qoro waa in la isku xidhiidho saddexdaas baan isku xidhiidhayaa qaabkan noqonayaa taas waxa weeyaan taadii hore tha'diina watan jiimkiina qaabkaasaan ugu xidhayaa way isku xidhxidhmeen saddexdii xabo waan isku xidhxidhay hal meel baan isugu keenay haddaba maanta waxaan ku barayaa qaabka carabiga la isugu xidhxidho dhalinyarada iyo weliba qaybaha iskuuleydu waxay ku qaadataa casharkan in bilo gaadhaysa 4 bilood 5 bilood 6 bilood inay fahmaan keliyaba macallinkuna way ku adag tahay miyaanu aqoon lagama yaabo in qaabkan aan kuugu sharaxayo ee kuugu sharaxo ilaa macallimiin aad u yari mooyaane waxaan rajaynayaa in casharadan aadka u fiican ee quruxda badan ee fahamkaaga ku salaysan in aad qof kasta oo luqadda carabiga ahi ama higaada carabiga ahi ay dhibayso aad u keentid si uu fahmo marka man salaka tariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu tariiqan ila aljanna rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam yidhi qofka jideeya dariiq cilmi ku dheehan tahay ilaahayna wuxuu u sahlaa dariiqa jannada marka ilaahay waxaan rajaynaynaa in dhammaantiinba naga dhigo qoliyaha jannada ugu horeeya aynu bilaabano maadaama waqtigu aada u yaryahay casharadeeduna inta badan ay socdaan 10 daqiiqo 10 daqiiqana ugu talagalay inaad ku fahantid 3 daqiiqo ugu horeysa 3 eray ugu horeysa baan qaadanayna aynu marka ugu horeysa ilaa alif ilaa ya baan akhriyi doonaa oo aan ku sheegi doonaa inta marxaladood ay maraan erey kasta wuxuu maraa 3 marxaladood waa inuu marka ugu horeeyo ereygaasi ugu horeeyo marna uu ugu dhaxeeyo marna uu ugu dambeeyo ma jiro wax inaa ka baxsan waa inuu ereygu ugu horeeyaa ama uu dhexda ku jiraa ama uu ugu dambeeyaa tusaale ahaan waxaan leeyahay hadda fa baan qoray kaaf baan qoray miim baan qoray ereyga ugu horeeya waa kee ereygan waa number 1 kana number 2 kana number 3 ereyga ugu horeeya ee meeshaasi waa kee ereyga ugu horeeya waa fa fa'da waxaad eegi doontaa marka aad baratid shaxdan marka ugu horeeya qaabka loo qoro fa'du marka ay ugu horeyso qaabka loo qoro waxaad kaloo ereyga dhexda ku jira isna waa kee waa kaaf baa la yihahdaa kaafka markuu dhexda ku jiro qaabkee loo qoraa hore maaha marka ugu horeeya maaha kama hadlayo eeg maanta isagoo dhexda ku jira waxaad eegi doontaa marka uu dhexda ku jira qaabka loo qoro miimku waa ugu dambeeya soo maaha oo waxaa ka horeeya fa'da iyo kaafka miimka markuu ugu dambeeyo qaabka loo qoro waa isagana aad shaxda ka eegi doontaa shaxdan waa shax ay dhammaystiran tahay xaraf kastaba markuu ugu horeeyo markuu ugu dhaxeeyo iyo markuu ugu dambeeyo aan kuu sheegi doono marka saddexdaas markaad baratid oo markuu ugu horeeyo xarafka markuu ugu dhaxeeyo markuu ugu dambeeyo maanta fa'da keliya waxaynu doonaynaa markay ugu horeyso qaabka loo qoro kaafka waxaynu doonaynaa markuu ugu dhaxeeyo qaabka loo qoro miimka waxaynu eegi doonaa markuu ugu dambeeyo qaabka loo qoro saddexdaa waxyaabood ayaa marka waxaa fiican oo adiga kuu fiican xaraf kastaba inaad baratid markuu ugu horeeyo markuu ugu dhaxeeyo iyo markuu ugu dambeeyo si aad isla degdeg ku baratid maanta waxaan kugu sharxi doonaa insha allahu tacaala sidii xarafkaasi aad usoo qaban lahayd oo u garan lahayd qaabka markuu ugu horeeyo iyo markuu ugu dhaxeeyo markuu ugu dambeeyo loo qoro casharkeenan hordhaca casharka afraad weeyaan waxaan rajaynayaa casharka afraad markaasi inay hore u galno oo halkaasi aanu kasii anbaqaadi doono casharka xiga ay adeegi doontaa sidaad u aragtid. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.